السلام عليكم أصحابتي هوري إذا جوجتي إيكو إيصوبيرين قولي قبل ما يدير لابتي أبار وايم إن شاء الله بإذن الله الكريم سكريب كاليسار ولا لهي سكريب كاليسار قلنتي إذا قولي قبل ما يدير رجينا إن شاء الله شاركتي لايك حقنا وايم إن شاء الله دad hore ila jooga dadka kusoo bari guriga gobonimo idin rajeyna waxay la isla dhageysan mucjisada Soomaaliya ka dhacday ilaahay horta wadankeena noo dejiyo nabad waarta Allah nooga dhigo muhiim wadankeena inuu noo dagaa muhiim ah dhibaatada xaalufinta oo gabdhaha iyo dadka lagu haayo ilaahay maanta waxaa lagu arkay meydka qof dumar ah oo la dilay laguna magacaabi jiray Caasho Maxamed Cabdilcasiis da'deedana lagu sheegay 20 sano jir dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay goobta la soo dhigay meydka kuwaasi oo ka anfariirsan meydka lagu arkay xaafadooda ehelka marxuumada ayaa soo gaaray goobta lagu arkay meydka waxaana la sheegay in marxuumad Caasho ay deganeed xaafadda Tabeelaha ee duleedka magaalada Muqdisho marxuumada ayaa la sheegay in ay ka shaqeynaysay maqaaxi ku taala Sarkuusta waxaana la waayay gelinkii dambe ee shalay ilaa maqribadii sida uu sharaxayo wiil ay ilma adeer yihiin oo markii ugu dambeysay telefoonka ay ku wada xiriireen magacaygu waa Aydid Maxamed Cali abdul magaceeda waxa la yiraahdaa Caasho Maxamed Cabdilcasiis waxa ay ugu wardibaysay shalay 9 saac ay caawinaysay walaasheed xaafadka guureysay xaafadka u guureysay ay caawinaysay markay caawisay kadibna maamada u shaqeynaysa soo dhawaaqtay maamada ay soo aaday xilligaas baan ugu wardibaysay teeda kale xilliga 12 waan soo wacan la hadlay waxay u tiri xaafadii maamadan jooga maamadan u qabanay haddana xaafadii baan joogay ugu tiri xilliga 12 شل المغرب حلو المغرب اللي يتمي تدري ذي نوع حسأل لواتن خبر كذا وحن هنلاقي هذا اللي ساعات صعبان هلا إنت لما كذا وسدع وعيني بس لما قبلني مرك خارنا ولا سود مني هذا داو هذا وحن أرني حقا حبض بعدك هلا عندها ما يكب بجسين واحد قبلني سي غير شبك شقيني سي ما خايد ما مع عاوني هذا حامل هذا marxuumad Caasho Maxamed ayaa ifka kaga tagtay ilaa 5 caruura waxaana ay ahayd xaamilo sida ay noo sheegtay gabar ay walaalayihiin waxaa la yiraahdaa Ambiye Maxamed Cabdilcasiis idan waxaa la dhahaa Caasho Maxamed Cabdilcasiis walaashayga yar waan waxay ka tagtay 5 cunug waa gartay marka cid ay u shaqeynaysay xalay saarkii ay mahdaan tag meesha waxay tir inta maraane alaaba wareejiya hadaan mari waxay tir walaasha xalay kula labo mayno imaanin bariga waa su shalay walaasha soo kalmeynaysa bariga inay noo imaatay sugeyn man noo imaanay tir ee lambarkayga qoro gabadhana waatana markaas aan gabadha waan wadanaa markaas tir gabadha wadinay suuqintii cawadan guguleynaaye iyadoo socota la helaa oo alaabtii inay ay hoosh ku soo islaatay iyadoo socotay maanta gabadheeda u sii joogtay tir sida aaga tag suuqa leen taga aniga suuqa daan tagayna waa la soo wacay anoo adeegashada waa gartay maxay qabanaysay iyada maqaayad ay ka shaqeynayso maqaayada oo ay taasiyaalo horteeda ciidanka uu fadhiyo daadeeda misan jir daadeeda waxa waaye 20 jir markii goormees maqashay marka gabadh walaasha la dilay hadda dhawaa la soo wacay guriga taa ma tagin baane suuqan kii maad guriga la soo mar guriga intuu ku yaala ehelka marxuumada ayaa ka codsaday hay'adaha dawladda in baaris dhab ah ay ku sameeyaan dilka gabadhooda oo meedkeeda la soo dhigay goob uu si aad ah kaga baxay geedka loo yaqaan cali garoobka ama geed yahuudka والله هذا ما جود كير تقول ما أنا عباس مع عبد العزيز أيضا عاش مع عبد العزيز حضرت بعض الوقت يعني عن مغلي أنا أيضا لدري dadka iso sheegan telefoonka iga soo wacayn dadkan waxaan warkay oo had aan ma jiraan waa ii maqal waa ii hada dawladda waxaan ka codsanaa inay xaqiiqadeeda qofkii macnaa in naloo soo cadeeyo meel nalooga sheego oo wixii la baaro oo dilkan la daba galo aa loo baahan yahay taasaan rabnay ma cadda sababta ka dambeysay dilka marxuumad Caasho mar aynu familkeeda weydiinay haddii ay jiraan dad arrimo ay kala dhaxeeyeen ayay inoo sheegeen in aysan waxba ka ogeyn haddii ay jiraan iyo in kale iyaga oo sidoo kale tilmaamay in saygeeda ay kala tageen ayna kala maqan yihiin muddo 2 bilood ah isaga oo ku sugan meel ka baxsan gudaha dalka Soomaaliya daday wax ka dhaxeeyay ma sheegi karaan waa gartay ninka furan wadanka ma jooga saadii la dhilahay gobol maxuu jiraa kadamada soo jira waxaan darteedan bil soo socday baabuuraan soo raacay dana baabuurka lacagta gabadhan dhahay gabadha gurigaan soo mar gabadhan soo qaatay mar Muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay marti gelinaysay dhacdooyin fool xun والله وحنا الله يسحوان سبحان الله dadka waa loo yimid
wadankan dadaa u imaado u tashaday oo dadkooda inay laayaan annagana ma fakarayna qabiil iyo waxaan jirin iyo reer hebel iyo reer kusow aan ka shaqaynayna dadkeeniina saasaa loo haljoosana ilaahay horta waxaa dadka dhibaayo dadka dhamayna allaha naga qabto calaamad allaha kasoo ifiyo qof bini aadana gabar yaroo masaakiin xoogeeda xamaalanaysay oo ilmaheeda uur lehe 5 caruur la daala dhacayso laa ilaaha illaa anta yaa rabbilcaalamiin ilaah wadaa kariima afka ciidda saas loogu daraa allah wallah waxaan sheega ma aqaan waa meel nolol kaga yimid ma aqaan ilaahay intii islaan oo dhan ummadda intii islaana ilaahay u gargaar ummadeena Soomaaliyeed ilaahay waxaan ka bari dowlad caadil oo khayr qabto ummadan kala dejiso oo xal u keento ilaahay inuu noo dhaliyo insha Allah biidhnillaahi kariim oo ku nasano yaa qabiil iyo quran iyo balaayin inta ka daba wareegayn wadankeena saa dadkeena loo hal jiqsana oo kii dhaqaaqa madaxa looga daa bal gabadha masaakiinta xaamilada 5 caruur korinayso maanta yaa u maqan dadkaas والله وعلى قلنا حوا إن شاء الله بإذن الله الكريم إله هون حادث قبر كذا هون نوريا أيضا حق عنك حق درنا هذا الشيء وقت كذا لما هذا لكن الجيش الله مرة فكره قبر كذا الله نور عرولت هذه تذكر سمر الإيمان الله كسي وحق الله لنا من خان إن شاء الله ساسي أنا بتكلم وخير سامر كانوا حام وكان أركم هذا حي وحنون إلا لله وإلا إليه راجعون هذا ما حق الله